بسم الله الرحمن الرحيم waxaan jeclahay maanta inaan saxaafadda markale la wadaago xogaa tafsiirada ama cadeyn ah hadalladanadii marin habaabin lagu sameeyay hadalan maalintii u dambeysay ee daraad aan ka jeediyay madashii shirweynaha afraad ee jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya ee magaalada Goday Gacalo waxaan ka hadlay dhowr qodob in Itoobiya ay gumaad nagu sameysay tusaale ahaan waxaan idin soo qaaday aniga awowey hirmooge awowey saddexaad waxaa dishay Axmaaro waxay ku dishay dushan elal la korkiisa adeerkayna waxaa dilay Menelikh awowey Menelikh baa dilay adeerkayna Xayl Salaasana adeerkay buu dilay adeerkay kale Layli hirmooge waxaa dilay Mingiste aabahayna magaalada Goday dawlaan ugu dhintay intii ka dambeysayna 140,000 baa isla 30 sano u dambeysay ay naga dishay dad xasuuqyadii ka dhacay waad ogtiin Ayshaca kii ka dhacay Qallaafe xasuuqii dhagax buur gumaadkii waad ogeydeen 77kii magaalada Malayko oo ah magaaladan ku koray wixii ku dhacay waa la hooyadii Naabaal baa ku daatay jirkeeda wali ku yaalo isku dhadhagan oo Mugista ku garaacay Itoobiya genocide bay nagu sameysay waa tusaalaha dadka dhibka ugu yar uu gaadhay marka waxaa kale oo ay nagu sameysay hanti burburin dhammaan guryahan ku lahayn dhanaan iyo Goday Itoobiya iyo cagaf maris hooyadii ku lahayd ku reerka iyagu lahaayeen haddaad qoysaska Soomaalida soo qaadana qoyska dhibaatada ugu yar muxuu ahaa gaadhay buu noqonayaa way ka wada dareen genocide kan sheegay kaas weey waa qodob magdhowna in laga siiyo qodobka labaad waxaan ka hadlay inay aftidii 2005 la qaaday ee ku saabsanay degmooyinkii 12 ahaa ee Soomaalida iyo Oromada walaalaha ay TPLF madaxa isu gelisay ee kolkay doorasho timaadaba ay dhinac u rogi jirtay markay doorashadu soo dhowdahay waxa la oran jiray waxa la siinayaa shacabka Oromada markay doorashadu dhamaatana waxa la jiray Soomaalida leh point la iskaga diraha aftiya laga qaaday Soomaalida oo intay ONLF dagaal ku jirto oo la gacan bidixaynayo oo la teembaraynayo oo shaydaan laga dhigayo oo nin walba ka cabsanayo oo nin walba ka carray aftida la qaado xeerka Itoobiyana sida la sheegay waxa ku qoran 10 sano mar baa la soo celin karaa meelaha ismaandhaafka iyo ku jiro iyo Soomaalidu dhibka ay tirsanayso walaalahanada Oromo u doonayna inay u sheegno oo run ah waxa weeye habka loo qaaday iyo degmooyinka iyo habka loo xukumay si cadaalad ah kuma qanacsanin Soomaaliduna kuma qanacsano annagu haddaan oo lafna waan qiraynaa waan cadeynaa lagu soo celiyaan leena aftidaas degmooyinka la isku haystay lagu soo celiyo dad walaalaha nahay qoladii xagga naga soo raacda sharaf bay ku noolaan qoladii xagga raacda sharaf bay ku noolaan isku layn mayno isku dilimayno gacmahan is qabsanayna ku shitig baanahay walaalaha nahay laakiin aftidii lagu hoos qaaday EPRDF wax loogu yeero dadka Soomaalida lagu gacan bidixaynay far baa nooga taagan aad u weyn 10 sano ka soo wareegtay lagu soo celiyay taa weeytaan ka hadlayay arinta kale magacana wax cusub ma jiro ONLF magac ogaadeenaya wadatay ururo badan baa wata waa magacaan 40 sano ku soo halgamayay 1948 kii baa markii horeysay magac ogaadeen jabhadda xoreynta ogaadeen halgama maqal daahir baa sameeyay muddo dheer bay soo socotay Soomaali galbeed baa hadana ka dambeysay muddo ay socotay haddana ONLF magac dib u soo celisay sabab halgan sabab Soomaalinimo sabab muxuu ahaayay muqaawamo wax iska caabin resistance darteed baa loo watay Itoobiya iyo dokumentiyadii lagu daba taagnaa magacaasuna dadka Soomaalida sharaf buu keenay difaac buu keenay halgan buu keenay dhiig lahu buu keenay walaalnimo buu keenay mideyn buu keenay ninka naftiisa horay miya ugu Soomaalisan mise ninka afka sheeganay الفعل أصدق من القول number 1 Soomaaliya oo number 1 Soomaaliya oo number 1 Soomaaliya oo Soomaalinimo lagu gaarin baan marka haddii la yiraahdo dadka Soomaalida in halka lagu marnabaabiyo ma doonayna haddii la yiraahdo gacmaha inay isqabsadaan magac Soomaaliya sameystaan ONLF taageeraan magac ay rabaan taageeraan ujeedo fiican lahaadaan ummad ahaadaan isku xidhnaadaan isdifaacaan iskaalmeystaan wada dhistaan baan doonayna marka Soomaalinimada sida ka fiicanna ma garanayno wax inta ka badan bini'aadamku sameyn karo inuu iskaashado oo dal ahaan iyo dad ahaan iyo diin ahaan iyo dan ahaanba uu u midoobo wax walbana wadaago hawsha wada dhibka wadaago dheefta wada wadaago magaca wada wadaago muxuu ahaayay haybta iyo identity-ga aan wada wadaagno
taa oon laf diyaar baan nahay sababahan usoo galay midaynta dadka Soomaaliyeed waan midaynaynaa dadka Soomaaliyeed waan midaynaynaa wax kasta ku midoobaan ku midaynaynaa mabaadiic fiican baan ku midaynaynaa difaaca xaqooda iyo dhulkooda iyo dadkooda ku midaynaynaa guushana way nala jiraysaa xoogagga iyo dawladda Soomaalida iyo kullina waa iskaashanaynaa 100 milyan baan rabnaa ka dhaxalgano inaan ku mashquulo xaafadeena ma doonayno xaafadeena inaan ku mashquulo aad u mahadsantahay